magaalada aan maanta joogo bishan 25 fal aad duulaan aawan oo ay ku soo duuleen cadowga annagu haddaan nahay dowladda Soomaaliya sida wasiirka shaqada halka wada noolaa ayay sharaftiisa cid walba oo doonaysa system inay ku soo duusho waxaan u naqaanaa cadow deegaankan dadkan helaalaha ah oo Soomaaliyeed oo nabadda ku noolaa in habeenmadow lagu soo guureeyo marasta iyo masaakiinta lagu laayo waa dembi qaran cid walba oo falalka noocaan oo kale ah ku lug yeelatana cadaalad ayaa la waafajin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaanu ku dadaali doonaa in qof walba oo ku lug lahaa marastaas iyo masaakiintaas laayo dowladnimada lagu soo duulo inay hesho cadaalad iyo waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo cid walba iyo qof walba oo maaragtay hanti ama naf yeeshaan dhibaato ka gaartay oo ugu horeeyaan maamooyinka halkaan nala joogo iyo waalidiinta halkaan nala fadhiyo oo ilmahooda iyo xaasaskoodii iyo walaalahooda meesha ku yaal dadkaas waa idinla qaybsanaynaa waa idinla qabnaa waajibaadaas loo dheer oo ah in ciddii dhibkaas geysatay cadaalad la soo taago meeshaan waxaan u nimid maanta inaan indhaheena ku aragno hay'adaha baarista ay xeer ilaalinta ugu horeyso waxaan faraynaa in waxa meeshaan ka dhacay baaristaba laga sameeyo qof walba oo ku lug lahaa ama gadaal ka joogay ama ficilka ku jiray in la soo taago maxkamad waxaan rabaa warkayga inaan kusoo gebagabeeyo soomaalidii horma Soomaaliya indhaheedu way furan yihiin wax walba oo gudaheedii ka dhaca ama cadow walba oo dibadda ugu yimaada waxay awood u leedahay inta tabarteeda hala noqotay inay iska difaacdo walaalaha Kenya waxaan u sheegaynaa in falalka amni darrada ay Soomaaliya lagu abaabulayo ay ka digtoonaadaan waxa ay sameynayaan ay ka laabtaan dalkan Soomaaliya dib waa soo maray in ku filan waa soo arkay laakiin haddeer wuxuu diyaar u yahay cid walba inuu nabad kula noolaado asagna gudihiisa nabad kula noolaado wixii siyaasad iyo howlaha Soomaalida gudaheeda ka dhaxeeya dowladaha deriska nagalama dhaxeeya waxaan rabnaa marka inay maaragtaa ixtiraamo la ilaaliyo shuruucda caalamiga ee adduunka dacwooyinkeena meelo oo maaragtaa waaweynaan geelay dad badan aan kala hadalnay waxaan rajaynaynaa in lala fahmo waxa anaga aan ka hadlay waxaan u mahadcelinayaa ugu dambeyntii ciidanka qalabka sida noocyadiisa kala duwan oo maanta inaan meeshaan isugu nimaadno maaragtaa sababteedu lahaa in shacabka maanta intii Ilaahay maaragtaa oo qoday maahan inta kale naftooda badbaadiyay hantidooda badbaadiyay iyaga naftooda huray oo rag qaali ah oo walaalaha ay ka halkaan ay uga dhinteen iyagoo qarankooda difaacay kulay wixii ciidankii umuurihiisa ah waxaa dhowdii maaragtaa war ka soo jeedin doona wasiirka difaaca iyo taliyaha aada u mahadsantihiin saxaafadda guud ahaan waa ku mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa saxaafadda caalamiga iyo kuwa localka oo nala jira in waxa meeshaan ka jiro si sax ah u gudbiyaan waxa aan sheegaynana ay si sax ah u fahmaan aada u mahadsantihiin